halkaad inaga daawanaysaan waa saxafi films daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan. barnaamijkan waxaynu kaga hadli doonaa geerida Sara Devi oo ilaa haatan xaaladeedu ay qasan tahay. Agtaradan ayaa waxa ay ku geeriyootay maalintii Sabtida ahayd dalka Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Dubai, iyada oo waqtigaasi la shaaciyay in wadnaha laga qabtay kadibna ay wadna xanuun u geeriyootay. Haddaba warar badan ayaa soo baxaya iyo baaritaano ay hayaan booliska dalkaasi Imaaraadka Carabta oo sheegay in ay qaab shila u dhimatay Sara Devi. haddaba baaritaankii ay hayeen askartii u dhalatay dalkaasi Imaaraadka Carabta ayaa kiiskii soo gabagabeeyay oo xiray kadibna agtaradii ayaa maanta oo Talaado ahayd loo soo qaaday dalka India gaar ahaan magaalada Mumbai. haddaba arrintaasi waxaa ka biyadiiday oo diidanaa xisbiga Bharatiya Janata Party xildhibaan ka tirsan oo lagu magacaabo Iswami. waxa uu sheegay in Sara Devi aysan wadna garaac u dhiman shilna aysan ahayn in la dilay. haddaba waxa uu ku andacoonayaa waa xildhibaankan ka soo horjeeda kiiska Sara Devi in la daboolo oo laga dhiga kiis wadna xanuun iyo shil ayay u dhimatay. waxa uu yiri sida la wada ogsoon yahay markii aan maqalnay geerida Sara Devi isla markiiba dhagteeda waxaa ku soo dhacday in la shaaciyay wadna garaac inay u dhimatay. kadibna waxaa soo baxay buu yiri warar kale oo sheegay in baaritaan la wado oo ay shil ahayd kadibna masqusha dhexdeeda ay ku siibatay. baaritaankaas waxaa sii dheeraa buu yiri inay askartii sheegeen inay alcohol cabsanayd. taasina waa tan anigu rabo inaan idinku cadeeyo in aysan Sara Devi wax shila ku dhiman wadna garaacna aysan u dhiman ee la dilay. Sara Devi si fiican ayaan u aqaanaa buu yiri, ma ahayn qof khamriga caba oo balwad kasta isticmaala. taasina waxay cadeyn ii tahay buu yiri waa mid koowaad. tan labaad aan idin siinayna waxay tahay buu yiri qolka ay deganeed iyo guriga ay deganaayeenba waa uu lahaa buu yiri kaamirada nooca loo yaqaano CCTV ee qarsoon. haddaba maxaa loo soo bandhigi waayay muuqaaladii guriga ay ku noolaayeen iyada iyo saygeeda iyo gabadheeda oo xafladda ka qayb galiyay buu yiri arooska meesha ka dhacay. waxa uu kaloo sii raaciyay waxaa la yaab igu noqotay buu yiri markaan dib hadaladii u raacay waxaaba saxaafadda loo sheegay in ay wadna garaac u dhimatay. haddana maxaa keeni kara in la yiraahdo shil ayay ku dhimatay musqusha dhexdeeda ayadoo qubaysanaysa ayay siibatay kadibna khamri ayay cabsanayd. waxaasoo dhan marka la isu wada geeyay waxay caddeyn u yihiin in la dilay kiiskaasna dib in loogu noqdo ayaan u baahanahay buu yiri maadaama kiiskaasi Imaaraadka Carabta uu soo xiray marxuumadina la soo qaaday ee la keenay magaalada Mumbai ee dalkeena. kiiskaasi waxaan dowladda India ka codsanayaa baaritaan inay ku sameyso oo il gaara loo yeesho qaabka uu u dhacay dilkaasi iyo waxa sababay. wuxuu yiri waxaa jira maafiyada loo yaqaan underworld oo xiriir la leh agtarada kay isfahmi waayaana qodha ka jira ayaan isdhihi karaa, balse arrintaasi waxay u baahan tahay lafteeda in laga taxadaro lana baara ayuu yiri oo uu ku celceliyay in uu diidan yahay kana soo horjeedo baaritaanka iyo qaabka loo shaaciyay loona soo xiray kiiskii Sara Devi. haddaba daawadayaal kiiska Sara Devi waa uu taagan yahay maanta oo Talaado ayaa la keenay magaalada Mumbai. dad badan oo ka mid ah faniska iyo eheladeedii ayaa waxa ay ku sugayeen guriga ay deganeed marxuumadda geeriyootay ee Sara Devi. agtara badan ayaa ka soo qayb galay waxaana kow ka ahaa Anil Kapoor oo ahaa dumaashigeed filimo badanna ay wada daadiyeen sida filimka Mr. Hindi. haddaba waxaa la filayaa maalinta Arbacada oo bari ku beegan in la sameeyo tacsideedii iyo aaskii Sara Devi. daawadayaal barnaamijka inuu kaga hadlaynay kiiska Sara Devi intaas ayaan kusoo afmeeyaa. wixii kasoo kordhana waxaad kala socon doontaan Saxafi Films. waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo Caaqil Cabdi Faarax. halka aad ka daawanaysayna waa Saxafi. si aad uga mid noqotid bahda ku xiran Saxafi Films fadlan subscribe saar Saxafi Films kadibna gambaleelka taaba si barnaamijka markii uu hawada soo galaba dadka ugu horeeya ee daawada aad uga mid noqotid fikirkaagana aad nagula wadaagta qaybta commentiska ee isla Saxafi Films. inagoo isku duuban oo paata Saxafi inta barnaamijka lamid ku kulmeen daawadayaal sidaa iyo nabadgelyo.